waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada xirfadkaal Medical College or Medical Training Center. Xaggan waxaynu ku dhigan doonaa maadada pharmacology-ga insha Allahu tacaala. Magacayguna waa Cabdifataax Ibrahim. Haddaan gudagalno maadada pharmacology-ga qaybtan waxaan dhigan doonaa cardiovascular drugska loo yaqaano qaybtiisa koowaad. Dawooyinka cardiovascularku aad bay u badan yihiin, balse waxaan ka bilaabaynaa kooxda koowaad oo loo yaqaano angiotensin converting enzyme inhibitors ama ACEI magaca loo yaqaano. Dawooyinkaas baynu isla eegi doonaa insha Allah. Kooxda class memberska ama dawooyinkan kuwa ka mid ah ama dawooyinka hoos yimaada kooxdan angiotensin converting enzyme inhibitorska loo yaqaano waxaa ka mid ah enalapril, lisinopril, captopril iyo ramipril. Dhammaan magacyada dawooyinkan xarafka ugu dambeeya ee ay ku dhamaadaan ee aad ku garan doonto waa maxay? Waa pril. Waxay ku dhamaadaan pril. Dawooyinkan maxaa loo isticmaalaa ama indication-koogu muxuu yahay? Dawooyinkan waxaa loo isticmaalaa xanuunada ay ka midka yihiin hypertension-ka ama dhiig-karka, chronic heart failure-ka, post myocardial infarction-ka oo dhammaantood bay yihiin cudurro ku dhaca wadnaha iyo chronic kidney disease progression prevention. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa xanuunka keliya xanuunka markuu muddo fara badan qofka ku raago ee uu sii kordhayo ama dhibaatadu sii kordhayso in laga hortago ayaa dawooyinkan loo isticmaalaa. Dawooyinkan side effect-ga ay leeyihiin waa maxay? Dawooyinkan side effect-ga ay leeyihiin waxaa ka mid ah dry cough, qufac qalalan, acute kidney injury, in si lama filaana kelida qofku dhaawacanto, dizziness, dawakhaad, hyperkalemia, potassium level-ka ama macdanta potassium-ta oo jirka aad u fara badata. Haddaba dry cough-kani waa ka ugu frequency-ga ah ee had iyo jeer ugu badan. Si looga hortago inta badan waxaa lagu bedeli karaa dawooyinka loo yaqaano ARB-ga oo magacoogu inta badan ku dhamaado sartaan. Insha Allah waynu dhigan doonaa. Mechanism of action-ka dawooyinkan angiotensin converting enzyme inhibitors waa noocee? Mechanism-ku waa maxay? Inhibit angiotensin converting enzyme ama ACE. Waxay dawooyinkani joojiyaan enzyme-ka ama kalkaaliyaha loo yaqaano angiotensin converting enzyme. Kalkaaliyahan shaqadiisu maxay tahay? It inhibit conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. Wuxuu isku bedelaa kiimikadan ama angiotensin 1 ayaa waxa uu u bedelaa angiotensin 2. Saalaajligeed dawooyinkani waa ay joojinayaan isku bedelka. Isku bedelka maxaa ka imaanaya? Haddii angiotensin 2 uu yimaado se maxaa dhacaya? Angiotensin 2 haddii uu yimaado waxyaalo aad u fara badan oo jirka ka mid ah in blood pressure-ku uu kordho, in renal reabsorption-ku uu kordho, waxyaalahaas oo dhan ayaabaa markaa meesha ka baxaya. Marka dawooyinkani then lowers cause reduced aldosterone, macdanta loo yaqaano aldosterone ama dheecaankan loo yaqaano aldosterone oo ka howlgala kelida si uu absorption-ka sodium-ta u kordhiyo ayaabuu markaa hoos u dhigaya. Sidoo kale lowers blood pressure. Dawooyinkani sidoo kale waxay hoos u dhigayaan cadaadiska dhiigga ama blood pressure-ka. Contraindication ama contraindicator. Dadka laga mamnuucay dawooyinkan inay isticmaalaan waa ayo. Inta badan waxaa laga mamnuucay dadka pregnancy-ga ah ama haweenka uurka leh inay isticmaalaan dawooyinkan maadaama laga hortagayo dhibaato ku timaada fetus-ka ama cunuga uurka ku jira. Dawooyinkan waa laga mamnuucay. Dawooyinkan interaction-ka ay leeyihiin dawooyinka kale maxaa ka mid ah? Kow waxaa ka mid ah dawooyinka NSAIDs-ka loo yaqaano ee ay ka mid yihiin diclofenac, aspirin, ibuprofen, indomethacin iyo dawooyinkan ACEI-ga aan soo qaadanay laislama qaadan karo. Haddii laisla qaato se maxaa dhacaya? Haddii laisla qaato waxaa dhacaya dawooyinkan NSAIDs-ku they lowers the effect of angiotensin converting enzyme inhibitors. Waxay hoos u dhigaan waxtarka dawooyinkan ACEI-ga. Sidoo kale taken together leads to renal failure. Haddii labadan dawo laisla qaato NSAIDs-ka dawo ka mid ah iyo dawo ka mid ah angiotensin converting enzyme inhibitors-ka haddii laisla qaato keliya xanuun baa dhacaya oo qofku keliya xanuun baa uu haleelaya. Haddii aanu imaado kooxdan kale
dawooyinkan ARB-ga loo yaqaano angiotensin receptor blockerska ee sartaan ku dhimaada sida losartan, candesartan, irbesartan waan dhigan doonaa insha Allah. Haddii lala qaato dawooyinkan ACI-ga waxaa leeyihiin khasaare aad u halis badan. Khasaarahaasina waxaa ka mid ah waxtarkoogu isma bedelayo balse dhibaatada ama toxicity-ga kusumow ayaa dhacaya inuu qofku kusumoobo. Suntaas maxay keenaysaa? The risk of hypotension in blood pressure-ku si lama filaan ah qofka hoos u daadego oo qofkaasi postural hypotension wixii la oran jiray jooga ka dhaco. In hyperkalemia potassium level-ta labada dawo ee angiotensin converting enzyme inhibitors iyo ARB-gu waxay sababaan potassium level-ka inay kor u qaadaan. Sidaa darteed potassium level-ku inay xadka ka baxdaa dhici karta iyo sidoo kale renal impairment iyo kelyaha oo qofka dhibaato gala ama fail garooba. Dawooyinka aynu soo dhiganay waxaa ka mid ah enalapril, lisinopril, captopril iyo ramipril. Dhammaan dawooyinkan waxaa la isku yidhaahdaa kooxdooda angiotensin converting enzyme inhibitors. Insha Allah waxaynu qaadanaynaa kuwiis balse kuwiiska hadda qaadanayno oo waxaynu qaadanaynaa insha Allah kalaaska inoogu xiga. Aad baad u mahadsantihiin.